الحديث العاشر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. بسم الله. waxaanu bilaabanaynaa tafsiirkeennii ama sharaxaadii axaadiista casharkii 10aad. xadiiska ina allaha tacaala dayib laa yuqbalu ilaa dayib. can abi hureyra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam. abu hureyra alla raaliha ka noqde wuxuu ka soo wariyey rasuulka sala allahu alayhi wasalam inuu yidhi, nabadgelya naxariis korkiisa ha ahaatee, ina allaha alle tacaalaa korahaay dayibun waa dayib oo wanaagsan yahay, laa yaqbalu ma aqbalo ilaa dayibun wax wanaagsan oo daahira mooyaane. ilaahay waa daahir, maadaama alla daahir yahay, waxaan daahir ahayn oo wanaagsanayn ma aqbalo, oon xalaal ahayn oo nadiif ahayn. wa ina allaha alle amara almu'miniina wuxuu amray mu'miniinta bimaa amara bihi almursaliin wixii uu rususha amray. faqaala tacaala alle wuxuu yidhi, yaa ayuha rusulu rusulay kuluu cuna min adayibaati waxyaabaha wanaagsan ee xalaasha ah, wacmaluu sameeya saalixa camal wanaagsan. suuradda mu'minuun. waqaala tacaala sidoo kale alle wuxuu yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahi rumeeyeyu kuluu cuna min adayibaati waxyaabaha wanaagsan ee daahirka ee nadiifta maa rasaqnaakum ee aan idin siinay. aayaddaas albaqara ku jirta. uma dabadeetana dakara wuxuu xusay rajulun nin yudiilu safara safarku ku dheeraaday, ashcata tima fiilfiilan oo timihiisu basaas leeyihiin, aqbara boodhaysan maadaamuu safar ku jiro, yamuddu yadayhi ila samaa gacmihiisa kala bixiyey oo kor iyo samada u taagaya. yaa rab buu leeyahay, rabbiyow. wamadcamuhu xaaraam cunto xaaraanuu cunay, wamashrabuhu xaaraam sharaabka iyo cabitaanka biyaha iyo sharaabka uu soo cabay waa xaaraan, wamalbasuhu xaaraam dharka uu xidhan yahay waa xaaraam, waqudiya bilxaaraam xaaraan ayaa lagu soo koriyey oo lagu soo quudiyey oo jidhkiisa iyo lafihiisu ku taagan yihiin. faannaa yustajaabu lah sidee baa looga aqbalayaa? rawaahu muslim. xadiiskan waxaa soo saaray muslim. xadiiska waxaanu ka qaadanaynaa alle inuu dayib yahay oo daahir yahay. alle wuxuu jecel yahay daahirnimada, camaliyad, cunto, nolol intaba. xaaraan cunistu waa xaaraan cad, cunto, cabid, dhar, dhaqaale, dhammaan. camal lama aqbalo haddii uu ku dhisan yahay xaaraan, xitaa haddii uu qofku safar ku jiro, baahi qabo, duco badan sameeyo, waxaasoo dhan waa biyo coldhaanshay. safarka iyo baahidu waa sabab aqbalid duco, laakiin shardi bay leeyihiin oo xalaal weeye shardigaasina.
adigoo safar ku jira oo baahi qaba oo isduleynaya oo astaamihii ducada laga aqbali lahaa keenay, haddana haddaad xaaraan cuntay taasaa waxba gubaysa. waajib in la raadiyo waa waajib in la raadiyo risiq xalaal ah, xitaa haddii uu yar yahay way ku saaran tahay dushaada. camalka wanaagsan wuxuu shardi u yahay xalaalnimo. salaad, sadaqo, duco dhammaan laga aqbali maayo haddii aadan dharkaaga, cuntadaada, cabitaankaaga, noloshaadu haddaanay xalaal ahayn. xalaal miradnimadu iyo waracnimadu waa sababta ugu weyn ee ducada lagu aqbalo. xaaraantu waxay dhaawacdaa qalbiga iyo iimaanka, ma saamayso caloosha oo keliya. tawaaduca iyo is-hoosaysiintu keligeed kuma filla aqbalaadda ducada. gacmo fidin, oohin, baryid lama aqbalo haddii xaaraani jirto. qofku wuxuu mas-uul ka yahay halkuu ka helo risqiisa. dakhliguna waa cibaado, markaa waa inaad halka irsiqaad ka helayso iska hubiso. qofku waa inuu ka toobad keenaa xaaraan haddii uu rabo in camalkiisu noqdo mid miisaan leh oo la aqbalo. xadiiskani wuxuu dhigayaa qaanuun weyn: ilaahay camal kama aqbalo nolol xaaraan ku dhisan. waana taa qaacidada xadiiskan ka qaadanaynaa ee ugu weyn. wallaahu aclam.